السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي ميل كستا أشوكتان وحدير تشينيا بدقب إيا برواقو. ماقعي وادل مر أحمد المر كسو دوادا مادة فيسيكسكا دوكسيكا سارة فون فوركا. شابتر كصدحاد والله يغانو electromagnetic induction. شابتر كان صدحاد اللي يغانو electromagnetic induction وحنكو بران دونا لح عشر أو كلاء inducer current and EMF. korontada la saaqay iyo xoog danabwadaha waxaan ku baran doonaa Faraday law xeerka Faraday law electromagnetic induction-ka daninta danabka uu sameeyay waxaan ku baran doonaa chapter-ka sidoo kale Fleming's right hand rule xeerka gacanta midig ee Fleming's sidoo kale chapter-ka waxaan ku baran doonaa application of electromagnetic induction saaqid birlabdanabowgu adeegsiga uu leeyahay ama nolosha bini aadamka waxa uu ku kordhiyay ee loo adeegsado casharka shanaad ee chapter-kan kamid ah waxaan ku qaadan doonaa mutual induction waa Soomaali lagu yiraahdo saaqid wadaag oo isagana kaga hadli doono si xoojinta iyo yareynta korontada xoogeeda ugu dambeyn casharka ugu dambeeya 3.6 waxaan ku baran doonaa national grid system and power transmission habka tabinta korontada loo gaarsiyo macaamiisha iyo customerka dadka u baahan korontada dhulka looga baahan yahay loo gaarsiyo casharka koowaad marka oo chapter-ka kamid ah waxaan ku baran doonaa inducer current and EMF laakiin inta aanaynu casharkan electromagnetic induction-ka aanaynu bilaabin waxaan rabnaa si kooban oo degdeg ah oo briefly ah inaynu sharaxaad yar oo kooban aan uga bixino chapter-kii hore ee magnetism-ka ee afoontuga ku soo barateen oo chapter-kani si weyn ugu xidhan yahay chapter-kii hore ee magnetism-ka waxa ku soo barateen ee form-2 ahayd magnet-ku waa maxay magnet waxaan ku soo sheegnay inuu yahay magnet is a metal which attracts magnetic materials such as iron, steel, cobalt and nickel sida tusaalahan birta iron-ta oo kale birta loo yaqaan cobalt-ga oo kale iyo birta loo yaqaan nickel-ka oo kale bir soo jidata inuu birlabtu ay tahay hadaba waxaan soo aragnay magnetku inuu leeyahay a magnet has two poles known as north pole and south pole birlabtu waxay leedahay laba cidhif oo loo yaqaan south pole iyo north pole bay leedahay sidaa darteed the space surrounding a magnet where it produces magnetic force is called magnetic field hadaba birlabtu waxay leedahay awood birlabeed ku wareegsan oo loo yaqaan magnetic fields loo yaqaano magnetic field kaas the direction of magnetic field is from north pole to south pole jihada magnetic field kaasi waxa loo qaataa had iyo jeer inuu yahay from north pole inuu ka tago dhanka north pole-ka oo yahay towards the south pole waxana lagu ogaan karaa oo lagu heli karaa marka magnetic field-ka waa lines ama waxa loo yaqaano khutuut wahmiya yani waa lagu mala awaalay laakiin wax laga arkayo meesha ma aha birlabta xariiqo ku wareegsan waxaase lagu ogaadaa hadii birlab halka la dhigo birlabtu dhanka north pole-ka magnetic compass jiheeye hadii north pole-ka la dhigo uu ka sii jeensanayaa hadii hortiisa dhibic la sii dhigo saacadii xaggan u sii jeensanaysaa hadii la sii wado aakhirka saacadu waxay ku jeensanaysaa dhanka south pole-ka saa darteed baajihada magnetic field-ka waxa loo qaatay inuu ka tago dhanka north pole-ka oo uu aado dhanka south pole-ka hadaba waxaanu sidoo kale soo aragnay ee wire carrying a current wire koronto xambaarsan also creates magnetic fields inuu badad birlabeed uu soo saaro marka birlabta kaliya magnetic field ma soo saartay sidoo kale korontaduna waxay soo saartaa wax loo yaqaan magnetic field wax loo yaqaan tusaale hadaynu soo qaadano a single straight conductor wire toosan oo ama dhagaati toosan oo danab gudbiye ah waxa jira magnetic field sida birlabtaas oo kale ku wareegsan iyadana ama xoog birlabeedka jihadiisa waxaynu ku heli karnaa inaynu isticmaalno wixii loo yaqaanay right hand grip rule xeerka gacanta duubista gacanta midig inaan isticmaalno farsuulku wuxuu sheegayaa jihada korontada ay u socoto farahana waxay sheegayaan jihada magnetic field-ka wire-ka korontada xambaarsan ku wareegsan marka haddaan farsuulka u jeedino meesha direction of current haday tani tahay jihadii korontada magnetic field-ka wire-ka ku xambaarsan waxaanu sameeynaa saas oo kale u qabanaynaa
okay marka farahaygu xaggaas ay u sii jeedaan marka magnetic field-ka ku wareegsan wire-kaasi waa in circles buu ku yahay sidoo kale waxaanu soo aragnay haddii wire ama dhagaati danab hayaan xambaarsan quman haddii walax magnetic material ah lagu soo dhaweeyo lagu duubo in walaxda magnetic materialka iyada lafteeda ay noqoto birlab tusaale ahaan haddaan soo qaato qodobka aan ku duubo wire okay wire-ka aan ku duubayna aan ku xidho tusaale ahaan battery aan ku xidho ama unug tamareed aan ku xidho korontadu direction of coefficient current waxa loo qaataa inay ka tagto dhanka positive-ka dhanka negative-kana ay soo aado marka wire-kaas ku duuban ee musmaarka ama qodobka ku duuban jihada korontadu waa upwards faraha marka waxay u qaadanayaan marakan direction of current baan u qaadanaya farsuulkana waxaan u qaadanayaa direction of north pole baan u qaadanaya marka saasaan u qabanaya faraha current maadaama ay kor wire-ka u raaciso farahaygu kor bay u jeedaan dhankana marka wuxuu noqonayaa north pole kana wuxuu noqonayaa south pole haddaba magnetic field bay soo saaraysaa birtartan magnetic materialka ah ka tagaya north pole-ka oo aadaya south pole-ka qodobadaasi aynu soo aragnay si weyn waxay inuu saameyn doonaan qodobada aan electromagnetic induction-ka aan ku dhufanayno marka waa muhiim waxa weeyaan inaad marka hore aad xoogaa magnetism-kii aad soo yar dul martaan oo akhridaan sidoo kale waxaynu soo aragnay wire-kii korontada xambaarsanaa haddii la dhex dhigo tusaale ahaan waxaan soo qaatay U-shaped a magnet okay waxaan soo qaadanay U-shaped magnet okay haddii wire koronto xambaarsan badad birlabeedka aan dhex marino ka tagaya dhanka north pole-ka oo aadaya dhanka south pole-ka wire-kaasna uu ku xidhan yahay dhagaati danab gudbiye ah tusaale ahaan uu ku xidhan yahay okay jihada wire-kaas wuxuu la kulmayaa xoog eeg wire koronto xambaarsan haddii la dhex dhigo magnetic fields wuxuu la kulmayaa xoog buu kala kulmayaa waxaana ku dhaqaaya dhaqaaq baa ku dhacaya marka magnetic field-ka waxaa loo qaataa inuu ka tago from north pole oo aado to south pole hadda magnetic field-ka direction-kiisu waa from north to south weeyaan okay current-guna waxay ka imanaysaa xagganay u socotaa marka oo dhankanay ka imanaysaa okay jihada marka waxaynu haysanaday jihada magnetic field-ka oo ah from north to south iyo direction of current oo farta tani ay sheegayso farsuulku marka wuxuu sheegayaa motion-ka meesha wire-ku u dhaqaaqayo marka current-gii iminka xagganay u sii socotaa okay from north pole to south pole motion-ku marka muxuu noqonayaa inwards wuxuu u dhaqaaqayaa hoos baa wire-ka loo dhaqaajinayaa saa darteed eeg magnetic field plus current waxa ka dhalanaysa equal motion baa ka dhalanaya motion dhaqaaq baa ka dhalanaya si aynu u xusno waxaan u soo gaabinaa Africa movies say xusuusta inooga caamiso Africa field okay field plus current okay current movies waa motion-kii weeyaan xeerka waxaa loo yaqaanay motor effect baa loo yaqaanay balaan wax yar isla aragno haddaba qodobadaasoo tijaabo ah ila daawada fideoga chapterkii magnetism-ka waxaynu ku soo barannay birlabtu inay tahay bir soo jidata biraha qaybtood sida iron-ta birta loo yaqaano steel iyo birta loo yaqaano nickel saddexdaa birood iyo isku darkooda inay birlabtu ay soo jidato eeg marka tani waa birlab waxay soo jidaysaa saddexdaa birood mid ka mida weeyaan tani waa iron marka iron line way soo jidatay marka haddaba eeg walxaha birlabtu ay soo jidato mid ka mid ah haddii wire inta lagu duubo wire-kaas koronto direct current oo battery ka timi la raaciyo iyada lafteedii baa waxay noqonaysaa birlab waxayna u dhaqmaysaa sidii birlabtii oo kale u dhaqmaysaayo iyana waxbay soo jiidanaysaa u fiirsada marka taas iyana birlab bay noqotay koronto la raacina waxay noqotay birlab marka haddii shay magnetic material ah wire lagu duubo kadibna wire-ka koronto ay raacdo isaga laftiisii wuxuu noqonayaa birlab haddaba motor effect-igu wuxuu ahaa u fiirsada motor effect-igu wuxuu ahaa halkaa birtaas waa bir iron baa igu jirta halkaas iron-taas birtan hoosteeda wire baa ku duuban wire-ka markaan koronto raacino magnet bay noqonaysaa marka waxaynu haysanaa current ka imanaysa battery-ga okay iron-ta oo soo saaraysa
magnetic field marka waxa ka dhalanaya motion habka noocaas waxa loo yaqaanaa motor effect waa current plus magnetic field oo ironta ay soo saarayso plus equal motion oo waxa loo baahan yahay waa habka marwaxadaha u shaqeeyaan waa habka mashiinka aad ishraaka ku shaqeeyo u shaqeeyo waa habka qas'aada aad dharka ku meelatid u shaqeyso waa habka motorka gaariga u shaqeeyo waa habka shay kasta oo koronto raacdo oo dhaqaaqa u shaqeeyo okay haddaba haddaynu intaa isla yar garanay aynu isla nimaadno casharka koowaad ee electromagnetic induction ka loo yaqaano electromagnetic induction chapterkan koowaad casharkiisa koowaad aynu naqaano induced EMF or induced current and EMF induced current and EMF okay induced current and EMF casharka waxaan ku baran doonaa oo maanta laga rabaa ardaydu markay casharka bartaan inay yaqaanaan explain the meaning of electromagnetic induction inay sharaxi karaan macnaha electromagnetic induction maxaa laga wadaa sidoo kale inay isticmaalaan use a galvanometer inay isticmaalaan danabeega a magnet birlab a thick electric conductor iyo dagaati danab qaada ah oo dhumuc leh buuran connected to a galvanometer oo ku xidhan saacad galvanometer danabeega ah to induce EMF into conductor si wire-ka koronto loogu saaqo ama koronto ay ugu dhalato sidoo kale at the end of the lesson students should describe ways of generating induced current casharku markuu dhamaado ardaydu waa inay yaqaanaan sidee baa koronto loo dhaliyaa sidee baynu koronto u dhalin karnaa hababkaynu koronto u dhalin karno outline ways to increase EMF koronto haddaynu dhalino xoogeeda sidee baynu u badin karnaa oo koronto tusaale ahaan Soomaaliya oo dhan isticmaali karto korontadaynu dhalinay aynu uga dhigi karnaa predict the direction of induced current inay sheegaan jihada korontadu ay u soconayso ama korontadu jihada ay u qulqulayso inaynu naqaano iyo inaynu baynu u baahanahay inaynu qodobada aynu ogaano haddaba induced current and EMF in 1831 the British physicist and chemist Michael Faraday discovered that sanadkii 1831 ayaa nin reer England ahaa oo la dhihi jiray Michael Faraday oo ahaa nin aad ugu xeel dheer physics-ka iyo chemistry-ga wuxuu soo daahfuray that a magnet moving in and out through a coil of wire causes an electric current to flow through the wire in birlab lagu dhaqaajiyay ama laga sii dhaqaajiyay wire duuban inay sababtay wire-ka in koronto ay ku dhalato this current is detected by a galvanometer korontadana waxa lagu ogaan karaa meesha ku dhalatay saacadda galvanometer-ka ee korontada inoo cabiraysa if magnet is held stationary there is no induced current through the coil and need of the galvanometer doesn't deflect haddii magnetka aan la dhaqaajin wax koronto ah dhalan mayso saacadda galvanometer-kuna dhaqaaqi mayso okay saa darteed koronto waxaynu ka dhalin karnaa haddaynu u baahannahay maanta inaynu koronto dhalino waxaynu u baahannahay birlab iyo wire mid u dhaqaaqayo labada qodob baynu u baahannahay waayahay balaan isla aragno tijaabada ila daawada saynu ogaano dhalinta korontada waxaynu ka dhalin karnaa oo kaliya markaan haysano birlab iyo wire oo mid u dhaqaaqayo aynu isla aragno tijaabada waxaynu haysanaa birlab iyo wire-kaas terminalkiisaas wuxuu ku xidhan yahay saacadda galvanometer-ka terminalka labaadna ee wire-ku wuxuu ku xidhan yahay galvanometer-ka marka koronto waxaynu dhalin karnaa haddaynu haysano birlab iyo wire midu u dhaqaaqayo korontada dhalatay waxa cabiraya inoo sheegaya saacadda galvanometer-ka waayahay sidoo kale koronto waxaan dhalin karnaa haddii aynu wire-ka dhaqaajino inagoo aan birlabta dhaqaajin ama waxaynu dhaqaajin karnaa birlabta labada hab baynu ku dhalin karnaa okay haddaba si kooban in summary
electromagnetic induction is a process of generating electric current from magnetic fields sida aynu tijaabada ka aragnay electromagnetic induction ama saaqid birlabdanabow waa hab korontada lagaga soo dhaliyo badad birlabeedka the current produced by relative motion of a magnet and coil is called induced current korontada ka dhalatay dhaqdhaqaaqa u dhaxeeya birlabta iyo waayirka midun inagoo dhaqaajinay iyadana waxa loo yaqaanaa induced current okay if the coil forms a part of complete circuit haddii coilkaas korontadu ku dhalatay ay ka mid tahay mareeg dhammaystiran the voltage or EMF makes it to flow xoog danab wadaha wuxuu ku khasbayaa korontada in ay mareegta raacdo xoog danab wadaha electro EMF waxaan u soo gaabinay electromotive force electromotive force was driving force for electrons to flow through the conductor waa awoodda dhaqaajinaysa ku khasbisa electronadu inay maraan conductorka inay maraan si kale haddaynu u dhigno waxay la mid tahay tusaale ahaan bamka guriga kuugu xidhan ee qasabada ku khasba biyaha inuu taangiga sare uu ku tuuro oo kale saas oo kale wuxuu ugu khasbaysaa electromotive force-ku korontadu inay mareegta sida biyuhu tuubada u raacayaan inay korontadu mareegta u raacdo okay haddaba waxaynu ogaanay koronto in laga dhalin karo dhaqdhaqaaqa u dhaxeeya birlab iyo waayir korontada aynu dhalinay seebaynu uga dhigi karnaa koronto laxaadkeedu uu sareeyo oo waxtar leh oo tusaale ahaan magaalo dhan ama wadan dhan inoo ifinaysa oo waxtaraysa ways to increase the induced EMF hababka korontada aynu dhalinay ama danab hayaanka aynu saaqnay aynu u badin karno waxa weeyaan number 1 the induced EMF can be increased by moving a magnet or coil faster birlabta iyo waayirka kaynu dhaqaajinayno inagoo ku dhaqaajina kaynaan aad u sareeyo inagoo ku dhaqaajina waa number 1 qodobka labaadna inagoo isticmaalna using stronger magnet birlab xoog leh which produces a greater magnetic field oo soo saarta badadanabeed badad birlabeed laxaadkiisu aad u sareeyo sidoo kale waxaynu ku badin karnaa increasing the number of turns of the coil tirada duubkeenu uu yahay inaynu badino haddii saddexdaa arrimood aynu yarayno ogow laxaadka korontada dhalanaya iyo korontada dhalanaysa waa yaraanayaan saddexdaa arrimood haddaynu badinana korontada dhalanaysa way badanaysaa waaya iyadana balinu isla aragno tijaabada ila daawada tadlatay waxaan ku badin karnaa inaynu birlab xoog la isticmaalo tusaale ahaan labada birlabood tanna waa birlab yar tanna waa birlab weyn markaan birlabta yar isticmaala ee dhaqaaqa saacadda ee markaan birlabta xoog la isticmaalana weyn كيف ساعد حقوق دقائق ساعة كسر عليه شانية طبعا صدق مركا حدان برلب تكديجو برلب حقوق اللي كديجو قرن تدا دلنا يساوي بدنا يساوي سيدو كلا وحنا كنا نكرا إن عن حقوق دقائق برلب نعم برلب حقوق دقائق برلب تبقى كان ترتيب دقائق ساعة دقائق مركا حقوق دقائق فين دقاجيل markaan xoog dhaqaajiyana duubkayga waayirkayga duuban wuxuu ka kooban yahay 200 oo duub kana waa 100 duub haddaan tirada duubka aan yareeyo korontada dhalanaysa way yaraanaysaa okay ways to reverse the direction of induced current hadaba korontada aynu dhalinay jihadeeda see u bedeli karnaa meeshay markii hore u socotay sidee uga bedeli karnaa waayahay number 1 moving the magnet or wire in the opposite direction hadaynu markii hore birlab soo dhaqaajinay waa inaynu birlabta dib u dhaqaajinaa jihadii korontada wire-ka ku dhalanaysa waa isbedelaysaa sidoo kale hadaynu coil-ka markii hore soo dhaqaajinayna coil-ka dhankaynu markii hore u soo dhaqaajinay opposite-kiisa waa inaynu dhaqaajino korontada dhalanaysa waa isbedelaysaa saacadda galvanometer-kana waxay u qaloocsami doontaa dhinacay markii hore u qaloocsantay opposite-keeda sidoo kale turning the magnet round so that the field direction is reversed inaynu birlabta
haddaynu markii hore north aan soo dhaqaajinay inaynu soo dhaqaajino south pole haddaynu markaynu north pole soo dhaqaajinay haddaynu saacadda galvanometerku dhinacay u dhaqaaqday opposite-keeday u dhaqaaqaysaa haddaynu south pole ku soo dhaqaajino saa darteed haddaynu magnetic field-ka aynu jihadiisa bedelo oo meeshay north ka soo qaadanay south aynu ka soo dhaqaajino direction-kii waa isbedelayaa sidoo kale iyadana bal tijaabada ila fiirsada jihada korontada waxaan ku bedeli karnaa wire-ka ku dhimatay laba arrimood inaan motion ka bedelo oo markaan birlabta soo dhaqaajiyo ee saacadda waxay u dhaqaaqday dhanka lefty side-ka haddaan motionkii aan bedelo birlabta aan dib u dhaqaajiyo oo empty ball aan kusoo dhaqaajiyo markii hore aan dib u dhaqaajiyo saacadda dhanka kale u dhaqaaqaysaa taasi waxay sheegaysaa haddaan motionka bedelo in directionka korontada loo saaqayo ay isbedelayso sidoo kale jihada korontada waxaan ku bedeli karaa anigoo meeshii enta ahayd s ka dhiga oo jihadii polarity-ga bedela ee magnetic field-ka bedela oo s ku soo dhaqaajiya eeg fiiri markaan s ku soo dhaqaajiyay waxay u dhaqaaqday jihadii ay u dhaqaaqday markaan n ku soo dhaqaajiyay opposite-keeda labadaa habbaan jihada korontada ku bedeli waayahay qodobka ugu dambeeya waxaan ku baran doonaa Lenz's law of electromagnetic induction xeerka Lenz xeerkaasi wuxuu inoo sheegayaa jihada korontada sidoo kale saynu ku ogaan karno The Russian scientist Henry Lenz formulated general law of finding direction of induced current. Ninkaas saynisyahanka ah ee Russianka ah wuxuu ogaaday jihada lagu heli karo korontada wire-ka ku saaqan buu ogaaday. Wuxuu ku leeyahay the Lenz's law states that Lenz law wuxuu inoo sheegayaa oo qeexaya the direction of induced current. Korontada wire-ka lagu saaqay is such as to oppose waa sida inay opposite ku tahay the change causing it isbedel birlabeedka ama birlabeedka isbedelkooda iyada sababay taa macnaheedu waxa weeyaan u fiirso haddaynu example-ka u fiirso haddaynu ku soo dhaqaajino north pole of a magnet towards the coil birlabaynu waxaynu ku soo dhaqaajinay cidifkeeda inta ayaynu waxaynu ku soo dhaqaajinay wire ku duuban aynu duubnay baynu ku soo dhaqaajinay okay Lenz law wuxuu ku leeyahay korontada halka ku dhalanaysa inagoo Faraday law tix raacayna markaynu birlabta dhaqaajino dee wire-ka koronta ku dhalanaysa saynu hadda soo sheegnay haddaba wire-kaas korontada ku dhalatay waxay u soconaysaa jiha magnetic field-keedu opposite ku noqonayo kii iyada sababay saa darteed coil-ka kani waxay isu bedelaysaa sidii electromagnet oo dhanka kale wuxuu noqonayaa north kana wuxuu noqonayaa south labadii marka birlabood north pole iyo north pole waxay sameynayaan repulsion oo waa isdiidayaan so that the motion is opposite haddii intii laga sii dhaqaajiyo if magnet is moved away from the coil haddii birlabta laga sii dhaqaajiyo wire-ka magnetic field-keedu waa sii yaraanaya wuu sii daciifayaa current-ga halkaa ku dhalanaysaa dee sidaynu soo sheegnay jihadeedii wuxuu noqonayaa opposite buu noqonayaayo dhankay markii hore u raacday markii hore xaggana u raacday saacadduna xaggay u qalloocsamaysaa laakiin marka n laga sii dhaqaajiyo jihadii waa isbedelaysaa xagganay u raacaysaa fiiriday saacaddiina waxay u dhaqaaqaysaa in opposite direction halkaa marka aan si fiican isla fahanno si kooban haddaynu u dhigno waxaynu oran karnaa birlabta aynu soo dhaqaajinay korontada ay sababtay waxay soo saaraysaa magnetic field opposite ku noqonaya ka korontada dhaliyay sida sawirka kaaga muuqata markaynu north pole aynu ku soo dhaqaajinay current-gu xagga north pole-ka u soo raacisay markaynu sii dhaqaajinayna current-gu waxay u dhaqaaqday dhanka opposite-ka sidii aynu ku soo sheegnay haddaba xeerkan hore oo niri jihada korontada waxa lagu bedeli karaa haddii motion-ka la bedeliyo haddii magnetic poles-ka la kala bedelo haddaynu meesha ku soo dhaqaajin lahayn s pole aynu ku soo dhaqaajin lahayn tana ay ahaan lahayd coil of wire aynu ahaan lahayd fiiri waxa dhici lahaa saacaddu waxay u qalloocsamaysaa dhankii markii north pole-ka lagu soo dhaqaajiyay opposite-keeda oo korontadu opposite bay noqonaysaa fiiri marka magnetic field-ka sii daciifaya coil ba wuxuu sababayaa current-gu inay coil-ka ku dhalato current-ga coil-ka ku dhalatay waxay sameynaysaa fiiriday magnetic field tan opposite ku ah oo soo qabta magnetic field soo dhaqaajinay waa field soo xoogaysanaya maxaa celin kara xaggan waxay noqonaysaa s xaggan waxay noqonaysaa n inagoo isticmaalayna right hand grip rule saasaynu u qabanaynaa farsulku waxaynu u jeedinaynaa north pole-ka faruhuna waxay inoo sheegayaan direction of inducer current okay sida kaaga muuqata maanta casharkeena halkaas ay ku soo gabagabaynaynaa su'aalaha ila arka
waa mahadsantiin. Thank you very much.